bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadyada iyo tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinkugu khidmaynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadaad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jeddah kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star-ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendooyinka casriga ee VIP-da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel intii horay uga khidmaysay aad u jeclaysatay inta kana ay jeclaysan doonaan ana jeclaystay iyada jeclaystay asaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada Furqaan Travel yaa la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee ma buuxiye la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaal idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahina shaashada ka daawada London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have wanaagsan waa la wada wadaagay noloshan intaasay ku dhisan tahay aniga waxbaan naqaana adigaadan aan aqoon 15 years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. Community. They are, in my opinion, Somalian communities. وأنا نقول سياسة هالكن هذا نقولين صارتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتي هودنا يلا سعوتاي مالك استوى الدنيا كجوكتان كسولو هذا قيب كلا وكمل برنامج كارمها بالشدة oo isbuuc walba xilliga oo kala TV-ga Universal xaruntiisa leh magaalada London si toos ah uga daawataan isbuucan ayaanu barnaamijka waxaanu ku eegaynaa hadii Allah awood la yiraahdo maadaama ay fooda lagu soo haysto bishii barakeysnayd iyo Ramadaantii hadii la yiraahdo oo dad fara badan oo muslimiin oo adduunka jooga ay aadayaan umra ay aadayaan xajna kadib loo diyaar garoobay hadii la yiraahdo inaanu eegno dadka muslimiinta ee UK jooga sida ay u xajiyaan iyo dariiqada loo maro iyo sharciyada dawladda Ingiriiska iyo dawladda Sacuudiga iskaalmaysanaya ay dhawaan soo saareen sharciyadaas oo ay yihiin dadka muslimiinta ee UK ka tagay sanadkan ama umrada ama xaj aad in ay sharciyadaas raacaan oo aad moodid xaqiiqatan in loo sahlay sharciyadaas sign postna loo sameeyo ama meel ay markaa macluumaad ay ka helaan hadii ay wadankan Ingiriiska gaar ahaan ka tageen waxaan ognahay xajka ama umrada muhiimada ay leedahay xagga diinta islaamka iyo culayska Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay gurigiisaas barakeysan iyo martida Ilaahay ee dunida daafaheeda ka imaanaysa waa meesha adduunka dadka ugu faraha badan ay mar qura ku kulmaan ayagoo waxa kulmiya oo kaliya ay yihiin kalimada tawxiid oo la ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah ayagoo jinsiyada kala duwan iyo luqado kala duwan iyo afaf kala duwan ku hadlaya midabyo kala duwan laakiin waaxid Ilaahaygood oo mid qura u yahay sida awgeed insha Allah ta'ala waxaanu eegi doonaa sharciyadan dawladda Ingiriisku ay soo saartay ee dadka muslimiinta lagu talagelinayo ama lagu wacyigelinayo inay raacaan hadii ay dhibaato ku dhacdo waxaana kamid ah inay isbitaal ka furaan ama clinic ay ka dhex furaan xajka qarkiisa oo ay ka shaqeynayaan dad muslimiin ah oo ayagu markaas dhaqaatiir ah oo qof kasto Ingiriis ah ama baasaboor Ingiriis wata ama dhalasho wadankaana haysta ama baasaboorka weyn haata ama kuwa kale lagu taga haate markaas lagu daaweynayo si uu maaragtay u helo daawadii uu ka heli jiray wasaaradda caafimaadku markuu halkaan uu joogo caafimaadkiisana loo ilaaliyo Ilaahay baa caafimaadka wardiye tama arrimahaas ayaanu eegi doonaa iyo waxyaalaha la halmaala sanadkan adigu hadma tahay mid doonaya sanadkan inuu Ilaahay u martiyo dadku meelo fara badan bay u aadaan holiday laakiin meel loo tago
ama lagu martiyo waxaa u wanaagsan ilaahay subxaana watacaala agtiisa iyo gurigiisa haddii aad aadaysid iyo weliba haddaad dalkii hooyo aadaysid insha allahu tacaala waanu eegeyna ama meelo kale qaybaha dooba barnaamijka waxaana jeclaha marka horeysa cabdiweli inaan barnaamijkan kusoo dhaweeyey in badan aad tv-gan universal ka daawateen habeelaatee wax tacriifana aan u baahnayn oo qani ka ah asagoo in fara badan furqaan travel agency hayay meeshaasna ka shaqeynaya in fara badan dad fara badan oo soomaalina yaqaanaan servicyo kala duwana bixiya waxaanu eegi doonaa haddaba muhiimadda ay leedahay sharciyadan in la waardiyeeyo iyo sidai aniga adigu aan u tegi lahayn guriga ilaahay ama dunida daafaheeda iyo sharciyadaas inaanu waardiyeyno insha allahu tacala si aan dhibaata noogu imaanin dadkana wacyigelin u helaan cabdiweli markii ugu horreysay waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkan arrimaha bulshada naga aqbashay inaad nagala soo qeybgashay adigoo magaalo fog ka yimid marka u horeysa diiranaan si diiran baan kuusoo dhaweynaysanoo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحافظ الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد marka ugu horeysa salaanta islaamka aan cabdilxaafid ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa bahweynta soomaaliyeed oo tv-ga iga dhehanayso meel walba ay joogaan sida oo kale waxaan salaan diran u gudbinayaa shaqaalaha tv-gan caalamiga universal meel kasta uu ku yaalo waxgaaga cabdiweli intaa kadib muddo dhowr sano hadda waxaa ka shaqeynaysay arrintan oo travelkan furqaan travel agency aa haysay dad fara badan baa kusoo mara jinsiyado kala duwan wata waxyaalaha ugu horeeya dadka aad ka advice garaysaan ama ka waanay aad ku wacyigelisaan markay gaar ahaan xajka iyo cumrada aadayaan waa maxay cabdilxaafidow xajku sidiisaba sidaa u tacriifisay qof walba oo islaam ah oo qaangaara oo maaragtay caqli leh oo uu ku waajibo waajibkii ah maaragtay mid ah maalkii iyo mid ah maaragtay caafimaadkii waa inuu mar beydka ilaahay booqdaa waxyaabaha ugu horeyso anigu kolley aan dadka kala taliya waxaa ka mid a sharciyadii ay soo dejiyeen dowladdan ingiriiska iyo sharciyada dowladda sacuudiga oo iskaashanayaan sidaa horeba i sheegtay marka ugu horeyso qofka waa inuu haystaa baasaboor uu ku safri karo baasaboorkaas oo ah in uu hubiyo in uu baasaboorkaas ka dhiman yahay maalinta uu safrayo muddo 6 bilood ah kahor yani 6 bilood waa inuu valid yahay maalinta la safrayo intaas hadduu uu buuxiyo waxyaabaha kale aan u sheegna waxaa ka mid a in uu qofka uu ma aragtay gp-giisa aado uu u sheego inuu xaj u socdo sida ay dowladdan ingiriiskaba qof walba oo xaj aadaya ay waajib uga dhigtay dowladda sacuudigana marka laga dego airbortka weyn oo jidda special xajka dadka la weydiinayo talaalkii inay soo qaateen waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn iyo in ay sawiradii soo qaataan iyo ma aragtay sawiradaas oo ka caawinaya applicationkii xajka iyo hadhowna loogu samayn lahaa id kaaryadii si loogu garto qofkan meesha uu ka yimid qofkii lala xiriiri lahaa hadday dhibaato ku dhacdo iyo taleefanadiisii iyo nambaradiisi ay ku yaalaan waa gartay xaqiiqatan warqadan hadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska qeybteeda travel advice-ka ama qeybta wacyigelinta isku socodka waxyaalaha hadda aad sheegtay baa kamid a sida in maaragtay qofka uu haysto valid passport uu haysto inuu uu garanayo haddii dhibaata dhacda qofkii lagala soo xiriiri lahaa nambaradii uu haysto ilaan malaayiin dala isku imaanaysa wadan kalu qofkii u socdaa safraya dadkaas in badan safarkaan mare waxaa laga yaabaa inay u sahlan tahay dadka aan horay weligood u teginin oo aan xajka horey u teginin maxay kaga duwanaan karaan baa isleedahay dadkan kale ayagu xajka aadaya ama cumrada aadaya markii ugu horreysay ama dhalinyarada wataba cabdixaafidow su-aashaas waa su-aal muhiim oo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka faa'iidaystaan ay tahay qofka sideedaba marka ugu horeysa xaj uusan aadin waxyaabo badan ayaa maskaxdiisa ka guuxayo waxyaabahaas oo ay ka mid tahay sidii horta marka ugu horeysa xajkii uuba u gudan lahaa dhanka diinta ah waxaa kaloo maskaxdiisa ka guuxayso meesha aad tegi doonto xageebaad tegi doontaa xagee joogi doontaa meelaha mashaacirta oo kale ma aragtay mina musdalifa carafa xaramka oo kale dadka wax fikrada kama haystaan marka qofka xajka weli aan aadin mar walba dadka wuxuu kaga duwan yahay aniga aan kula talin lahaa inta uusanba xajba maskaxdiisa inuu travel agency intuu tago uu xaj uu iibsado waxaan jeclaan lahaa in uu raadiyo xajka sida uu u egyahay asaga oo maantay meelo badan ka heli karo sida internetyada
sida travel agenciyada oo kale hadduu tago uu dhaho xaj baan rabaa inaan aado ama qof soo xajiyey oo faamilkiisa ka mid ah ama asxaabtiisa ah inuu raadiyo waad ogtahay dadkii hore dhaqankeenii soomaaliyeed macaanaa marka ay rabaan inay guuraan reer baadiyaha way sahmin jireen marka waxaan dhihi lahaa dadka xajka aadaya intaydan xajka u bixin waa inaad sahmisaan lianna sacuudi carabiya oo kale qofka markuu wadankan ka tago oo sacuudi carabiya tago waxyaabo badan oo waxaa jiro sida ay u fududahay england oo kale hadda qofka hadduu magaalada ku dhumo waxaa laga yaabaa in waxyaalo badan ay caawiyaan halkaas dadkii oo badan boorarkii iyo saynankii oo luqadda carabiga ku wada qoran most of them qofkii aan carabiga aan garanaynin aan maaragtay luqadda carabiga aan garanayn dhib bay ku noqonaysaa marka waxaan anigu aan aada ugu waanin lahaa dadka inta aysanba xajka aysan aadin ama xajba aan la gaarin in badan dadka ay raadiyaan informationada leanna wax badan hadday noqon lahayd waajibaadkii sidii loo gudan lahaa iyo hadday noqon lahaydba xataa sidii wadankii aad tagtay aad ma aragtay ula jaan qaadi lahayd waa inaad wax badan oo ma aragtay macluumaad aad raadisaa waa gartay arrin hadaaya waxaa jirta aad ka dhawaajisay qeybahan kale dib baan usoo noqon doonaa oo ah qofku inuu waajibaadkii xajka guto inuu helo qof diintii yaqaano u helo idinku ka furqaan ahaan yaa idin raaca oo dadkan xajka iyo diintu iyo say wax u gudan lahay u sheega mithaal ahaan anu haddaan xajka tago meel loo maro garan maayo haddaan xajkii baan tegay laakiin waajibaadkii diiniga ha isaarnaa ma gudan karo meesha inaas ka tago loo maro xirta keliyana ujeedada waa ka weyntaa soo dhawow mar labaad ayaan ku mahad celin lahay cabdixaafid run ahaantii su-aashaas waa su-aal aada iyo aada u muhiina kolley xajka annaga ka furqaan ahaan haddaan ka soo qaado travel agency walbana wuu sameeyaa inta aan bal xajka la aadin waxaan isku daynaa in aan dadka seminaar aan u qabanno oo aan u kirayno ma aragtay meel weyn oo maalintaas lagu qadayn karo oo maalintaas ma aragtay dadku ay isugu imaan karaan kadibna waxaan u ballaminaa shuyuuq ma aragtay ka soo baxday jaamacadda madiina shuyuuqda soomaaliyeed oo ka mid ah shuyuuqdaas oo maalintaas subaxii 9 ilaa iyo 3 siinayo ma aragtay macluumaadkii diinta ay u baahnaayeen laanna qofka markuu xaj uu aadayo waa ma aragtay xajku wuxuu ka mid yahay ma aragtay rugnun min arkaan alislaam waxaa loo baahan yahay marka inuu ogaado horta maxaa adiga tilaabada ugu horeysa qaalaysa maxay tahay shuyuuqdaas oo kaga haqabtirto hadday noqon lahayd ma aragtay dhanka Soomaaliga iyo dhanka Englishka iyo dhanka Carabigaba laakiin dadka Soomaaliyeed waxaanu 100% annaga aanu ku waaninaa in qofka uu seminaarkaas imaado inay muhiim tahay si uu uga faa'iideysto xajkiisii sidii uu gudan lahaa xajkii uga qaldamin laana lacag badan buu bixiyay xajkiina qofka hadii uu ma aragtay hadhow khalqal uu ka galo ama uuba sameeyo waxyaabo xajkiisii ay wax u dhimayaan in ma aragtay annaga laftigeena ka masuul ahaan ay ma aragtay masuuliyad weyn naga saaran tahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay ba kullukum mas'uulun kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi marka waxaan aad iyo aad aan ugu sugu daynay inaan sheekh kaga qabtiro dhanka ma aragtay xajka oo waliba u soo koobo shuruudihii iyo arkaamihii si fudud inay u bartaan marka waxaan dadka aniga aan ku waanin lahaa mar walba xaj aadaysaan waa laga maarmaan travel agency-ga aad raacaysaan seminaarka uu bixinayo intaan UK laga tegin inuu ka qayb galo waa gartay waa wax lagu farxa xaqiiqatan inaad dadkii wacyigelin u sameynaysaan diini ah oo inaan eegayno kaliya dadkan dhaqaale aan ka soo galay laakiin waajib diini inuu ka saaran yahay aad garanaysaan waa wax lagu farxo haddaanu dib u noqono dowladda ingiriiska waxyaalaha ay hadda dhiiro gelinaysa sanadkii horena ay sameeyeen waxaa ka mid ah inay isbitaal ka furayaan kacbada dhexdeeda meel ku dhegan approximately waxay u jirto dadku ay markaas arkayaan ayna tegi karaan taasoo u sahlaysa dadka baasaboorka ingiriiska haysta ama UK nationalityga haysta inay tagaan oo caafimaad ay ka helaan qofkii halkan ka tegay arrimahaas waxyaalaha ka wacyigelisaan ku jiraan haddii dhibaato ku dhacda hargab uu ku dhaco ama se dhibaato kale ku dhacda inuu caafimaad raadsado oo arrintaasuna diyaar u tahay freena uu yahay maadaama baasaboor ingiriis wataan waa su-aal muhiima cabdixaafid kol dowladda ingiriiska isbitaalkaas aad sheegayso haddeer oo kale waxa uu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa hoteelka weyn ee la dhaho Hilton Tower oo xaramka ka soo horjeedo qof kasta oo baasaboor ingiriis haystana waxay diyaar u leeyihiin ma aragtay in ay kala taliyaan arrimaha caafimaad ee asaga quseeyo dadkana meeshaas inay tagaan waa ma aragtay qofkii awoodi kari waa waajib laakiinse travel agency-yada maalmahan dambe waxay sameeyaan travel agency walba waxaa la socda dhakhtarkaas oo kala talinayo xujayda xanuunada ku imaado iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen
marka run ahaantii anagu haddaan Furqaan nahay sanad walba waxaan raaco dhaqaatiirta UK dhakhtar ka mid ah oo aan ku casuulnaa inay raacaan oo si ay u siiyaan dadkana la socdo waxyaabaha dhakhtarka uu ka caawin karo sida prescriptionka inuu qofkii hadduu xanuunsado xataa uu daawadii u qori karo sida uu farmashiyaasha u tago uu daawadii uga soo qaato arrintaa ka dhawaajisa waa arrin muhiima waxaan kaga faa'iideysan lahaa caawa maadaama TV-ga aan joogo qof walba oo UK ka xajinayo in uu weydiiyo mas-uuliyiinta kaxaynayo isbitaalkaas meesha uu ku yaalo maka keliyana kuma yaala wuxuu ku yaalaa maalmaha la joogo Mina mashaacirta oo la joogo teendooyinka maalmahaasna teendooyinka ayay joogaan oo waxay degaan ma aragtay teendooyinka Europeanka dhexdooda ayay degaan marka waa muhiim qof walba oo travel agency nuzulka ahna uu og yahay meesha ay joogaan iyo meelaha ay degaan waxa uu kala u hayaa telefoonadooda dadkii la xiriir lahaa lifladii ku saabsanna way jiraan arrin xaj ku saabsan oo isleeyahay muhiimad gaar ay leedahay xajku ma ahan guri caadi oo kale iska tagtay waa guriga ilaahay baa marti u tahay masaajidan caadiga markaa tagtay hataa shucuurtaada way isbedelaysaa laakiin guriga ilaahay markaa tagtin ujeedada u tagtayna asagoo kaliya ay tahay marka kuugu horeysana ay tahay adoo cabdiwalid ka ahaana markaa cagaha ka dejiso gurigaas aragtay culayskiisa adoo yarna qur-aanka diinta ilaahay ku soo baray dareen intee laga bay qalbigaaga ku dhalisay ilaahay inaad marti u tahay gurigiisina cagaha soo dhigtay qur-aanka meesha kusoo degay cabdilxaafidow su-aashaas caawi waxay isoo xasuusinaysaa markii ugu horeysay oo aan beydka ilaahay tegay special aan magaalada Maka ka degay waxaan degay hoteelka weyn ee xaram ka soo horjeedo clock tower-ka ah maalintii ugu horeysay markii aan dawaafka bilaabay waxyaabihii ma aragtay aan aniga nafsadayda mar walba aan isweydiiyey waxaa ka mid ah qur-aanka in badan baan ku subciyey in badan baan aqriyey waxaa laga yaabaa inaanan ilmaynin laakiin maalintii iigu horeysay aan kacbada arkay waxyaabaha aan xasuusta hadda waxaa ka mid ah in ay ilma isoo dhaaftay qof walba oo iimaan leh oo meeshaas tagana waa qasab in uu ooyo oo ilaahay subxaanahu watacaala cadamadiisana uu xasuusto waxaan su-aashaas ku weydiiyey waxay ahayd waxaan akhriyey qiso laga soo naqliyey sheekh cabdixamiid kashki allah u naxariista isagoo anoo dhalinyaraa oo timuhu madow yihiin oo shaaba waxaan tegay buu yidhi xajka dabadeedna waatuu indhahlaaya nin baa gacanta hayay markaan cagaha ka dejino gurigii aan lugaha dhigay buu wuxuu ku yidhi waxaan eri buu yidhi ninkii gacanta hayay baa waxaan weydiiyey buu ku yidhi timahayga midabkoodu waa see wuu ila yaabay iimuusa jawaabin buu yidhi maxaa yeeley wax iska bedelanaysu jiri wuu ogyahay marka wax lagaa weydiiyey ma jirto wuu ku celceliyey markaan ku celceliyo ii jawaabi waayo baan waxaan ku eri buu yidhi farxad awgeed waxaan mooday timahayga inay isbedeleen oo caddaadeen inaan guriga ilaahay joogo marti awgeed marka meelaha soo jiita dadka waxaa ka mid a guriga ilaahay isagoo kulligiis wada qurux badan oo sharaf badan maqaamu ibraahim oo kale warbixin naga sii qof walba oo muslima oo xaramka ilaahay tago marka ugu horeysa waxyaabaha ugu horeysa qofka markuu ixraamkii qabo marka uu xaramka galo waxa uu sameynaya sidii caadiyimka ahayd in masaajidka lugta midigta aad geliso kadibna ducadii aad akhriso dadka muctamiriinta ah oo meesha tagay alaaba ayagu inay tukadaan taxiyatu masjid markaas ma aragtay ma ahan qofka waa inuu toos u qaabilaa kacbada maqaamu ibraahim marka aad dhamaysatid 7 wareeg oo wareeg walba uu ka bilaamaya xajar aswadka uuna ku dhamaanaya xajar aswadka Allah subhanahu wa ta'ala wa fi surati al-baqara wa tuqulaha wattakhidhu min maqami ibrahim musalla qof walba markuu dawaaf ka dhameeyo waa inuu 2 ragca ku tukada maqaam ibraahim gadaashiisa anigoo halkaa kaga faa'iideysanayo su-aashaas cajiibka ay weydiisay waxaan dadka walaalahaya meel kastoo caawa iga daawanayaan aan kula talin lahaa marka ay dawaaf ka dhamaystaan oo ay tukanayaan 2 ragco maqaam ibraahim in ay ka fogaadaan maqaamka oo aysan dhibin dadka dawaafayo لأن إن الله برق عكوتك مقام إبراهيم قداشيسة واستراضو سيدي سنها هيت سمي وحا كدب بدن إن أدتك دواف كدوافي الدواف كحرته شيخ ابن باس ابن عثيمين وحي بالله قفك سوحو سمي الدنبي وين هدي أساء سميه مركا قفك بدن عبدتك أن حجك مركا وهو الرئيس تقوحي اسكده يعني إني sameeyaan sidii sunnada ahayd laakiin se anu waxaan kula talin lahaa masaajidka meel kastoo ka mid ah
hadday u suurta gasho waa alxamdulilaahi wayna yar tahay boqolkiiba hal weeye inay u suurta gasho haddii kaleeto waa in meel allaalay meeshii masaajidka uu kasoo gaaro oo labadaas ragco oo maqaam ibraahim gadaashiisa ku tukadaa kadibna uu ducaystaa sida rasuulka sal ly slam uu noo sheegay kadibna uu biyaha zamzam ka aadaa kadibna uu halkaasi sacyiga u kacaa okay bacda sacyi maxaa markaas la sameynaya hadii la yiraahdo qofka marka sideedaba cumrada arkaanta cumrada waxaa weeye waa afar waa anniya iyo atawaaf sacyi iyo qofka inuu xirto qofka inuu markii hore niyeysto kadibna dawaafo kadibna uu sacyiyo kadibna uu madaxii ama iska gaabiyo ama uu jarto sacyiga waxaa ka dambeeya marka inaad madaxa gaabsatid ama jaratid marka maadaama ay ahayd inaad xaj u tagtay sida sunnaha ah waxaa fiican qofka inuu xirto sida rasuulka sal lla alay wasalam uu ugu duceeyeyba ma aragtay dadka xirto inuu ay laba saddex ay dheer yihiin dadka jarto laakiin waxaa jira dad timahooda waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama ay dhib ay ku yihiin marka anigu waxaan kula talin lahaa inay gaabsadaan xajka maadaama xajkiina uu ka dameeyo xajkiina ay ma aragtay markaa kadibna ay xirtaan marka sacyiga waxaa ka dameeya oo keliya waa xirashada qofka markuu xirtana wuu xalaaloobay xalaalowgaasna waxaa weeye qofkii wixii ka xirnaa oo dhan baa u furan inuu dharkiisii caadigaa gashto surwaalkii iyo shaatigii ama inuu gashto qamiis ma aragtay inuu ma aragtay markaas cidiyihii iska jari karo inuu timo kale iska jari karo ma aragtay iyo ma aragtay hadduu ehelkiisi la socdo way u banaan tahay iyo wixii ka xirnaayo dhan baa u banaan after ma aragtay marka uu xirto kadib insha allah waxaa jiri kara dad fara badan oo soomaalida dunida daafeeda jooga oo doonaya sanadkan inay xajiyaan ama idinka idinla soo xiriiraan telefonkan waxaan siinaynaa bal fursad dadka walaalaha su-aalahay qabaan oo xajka iyo sharciyadan ingiriiska iyo dowladda sacuudiga labadaba saameynaya inaanu eegno qof ka horeeya halow qofkaas ima maqlayo cabdiweli ajensiyo fara badan baa halkan ku yaala kuwa soomaali ay leedahay iyo kuwa aan soomaali lahayn oo ajnababa haddii anigu aan doonayo inaan tigid jarto oon xajka aado ama dalkii hooye aan taga samarkan maxaad igu advice garayn lahayd marka ugu horeysa inaan sameeyo waa maxay waxaan u baahanahay inaan raadsho ajensigana loo baahan yahay sharci ahaan inuu leeyahay waynu kala qaadaynaa su-aashaas cabdilxaafid haddii aad u baahan tahay inaad xaj aadid iyo inaad u baahan tahay inaad dalkii hooye aadid xajka sideedaba dad badan ayaa su-aalo waxay iga weydiiyaan ka waran haddii aan fiisihii haddii aan intaan tigidkii goosto aniga xajkii iska aado dowladda sacuudiga sharcigaas sharciyo adag bay kasoo dejisay sharciyadaasna waxaa ka mid ah qofka marka uu imaanayo xajka waa in ama wadanka uu ka imaaday hadduu yahay wadan islaama waxaa jirta bictha oo wasaaradda awqaafta hoos imaada oo kaxaynayso haddii sida wadamada aynu joogno hadda ingiriiska oo kale iyo wadamo badan oo caalam ka mid ah waxaa jiro xamlaad ama travel agensiyo ayaga mas-uul dowladda sacuudiga uga ah inay aadaan marka qofka waxaan kula talin lahaa xajba haddii uu aadayo uu rabo inuu xaj aado travel agenciyada uu rabo inuu xajka uu ka goosto marka ugu horeysa waa inuu hubiyaa dowladdan ingiriiska especially qeybta civil aviationka inay ka rajisgaraysan yihiin ama travel agencygaas uu leeyahay licenka la dhaho atal taas oo mar walba asaga hubinayso safarkiisa sii socdii soo socodba inuu si ma aragtay qurux badan uu u tago lanna xajka waxaa la bixinayaa hoteelo waxaa la bixinayaa diyaarad waxaa la bixinayaa cunto lacag badan baa baxayso lacagtaas qofkan haddii birito wixii adiga uu ku heshiiseen ama xajba uu ku geyn waayo ama qofkiiba uu iska xiraba travel agency adigu xaggee la xiriiraysaa marka waa muhiim arrintaas inuu qofka uu travel agenciyadaas la xiriiro hay-adaas atalka ka rajisgaraysan si uu u ogaado birito haddii xataa ay wax ku imaadaan tilaabooyinkii uu qaadi lahaa haddaan khaldanayso hadalkaaga waxaan ka fahmayaa furqaan inay ka rajisgaraysan tahay hay-addaas furqaan travel waxay ka rajisgaraysan tahay hay-adda civil aviationka qeybteeda weyn ee london waxayna leedahay licenka la dhaho atal kaas oo qofka marka uu goosto xaj iyo cumraba loo diyaarinayo in la siiyo certificate maaragtay shahaadadaas oo ay ku qoran tahay qofka maalinta uu safro ilaa maalinta uu kusoo laabanayo wadankiisa in ay haddii ay wax ku dhacaan dowladda ingiriiska ay mas-uul ka tahay hagaag su-aashaydii waxaa tiri waa kala qaadaya qeyb waxaa jirta qofka dalkii aadaya ti soomaaliya oo kale qofka travel agenciyada marka uu tago waxa ugu horeeya uu weydiinayo waxaa weeye diyaaradaha soomaaliya tago hadeertaan haddii aynu kala qaadno muqdisho oo kale diyaarado badan ayaa tago sida turkish airline juba tagto daala tago
marka in uu qofka uu weydiiyo diyaaradda uu raacayo marka ugu horeyso tigidka uu goosanaya qaabkiisa sidee ayuu yahay ma tigid haddii wax ku dhacaan ma aragtay lacag aan loo celinayn ama aan la bedeli karin ba haddii uusa tago wadankii hooyo oo wadanka laftigiisa ay wax ka dhacaan xagee buu la soo xiriirayaa beri muxuu samaynayaa su-aalahaasoo dhan inuu weydiiyo waa muhiim waa gartay waxaan ku hayaa dad raba inay su-aalo ku weydiiyaan oo aan jeclahay inay su-aalahoodu arrintan xajka iyo cumrada iyo weliba holidhayda iyo sharciyada dowladda ingiriiska ay soo saartay ay ku sal leeyihiin oo qura qof ka horeeya halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا ويديو ولادك كجرة. walaal magacaha علي هذا magacaha walaal حسن xasan soo dhawow xagee naga soo wacaysaa xasan حسن لنا ما يحصل معي هون. aad baan kuu soo dhaweynayaa si fiican baan kuu maqalnaa soo daa su-aashaada السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قال إني باشن ده جواب ترى البرنامج ده. واحد اللي حدد دين ده بقول لي هاي ودين في هاي التمرين أو واحد تقع في installment وكل شيء كده وخلاص. دين كاس حتى من العارفة. aad baan kugu mahadcelinaa su-aal qaaliya xasan su-aashiisa waa maqashaan wayna cabduuli soo dhawow marka ugu horeysa xasan waa islaanta waa ka qaadayna wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha deynka ku saabsan xasan waxaan jeclaan lahaa inuu shuyuukhda soomaaliyeed uu weydiiyo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka wixii diini su-aal diiniya ku saabsan waxaa fiican in shuyuukhda la weydiiyo inta aan dee kolley cilmigayga yarka aan ogahayna qofka haddii deyn lagu leeyahay waxaa fiican inuu deynta iska bixiyo markaasna asagoo ma aragtay waxba aan lagu lahayn oo tii ilaahay haddii meesha ugu timaado beri ka ah inuu markaas uu xajiyo waa gartay xasan وما حسنت وافقنا على السؤال. allah ku karaameeyo hay aad baa mahadsan tahay xasan from london thank you layn kaloo ku xiga ahlan wasahlan عليكم السلام عليكم. calaykum assalam warahmatullahi wabarakatu soo dhawo walaal magaca حاسس وكسلام هذه ويركبة. cabdiweli soo dhawo walaal magaca فرحية وأبو farxi xagee joogtaa walaal لندن. waa la socotay barnaamijka أبو ها. soo dhawo marka waxaan rabay wiilka inaan warsado xajka markii la aadayo inaa qof xanuunsan oo fiican kara mashaar iyo waxaas ma u samayn karaan okay su-aal muhiima waay soo dhawo walaashay waa ka qaadnay salaanta farxiya aad baa umahadsantahay su-aashaas waa su-aal muhiima travel agenciyada dadka kaxeeyo qofka marka uu ma aragtay uu xajka rabo inuu aado marka ugu horeysa travel agencyga uu imaado sidaan ogahay travel agenciyado dhan waxa ay siinayaan foomkaas waxaa ku yaala inuu ku buuxiyo ma aragtay qofka macluumaadkiisa kadibna foomka hoos waxaa kaga yaala haddii qofka ay jirto inuu xanuun hayo ama special needs qofkaas uu u baahan yahay wheelchair inuu halkaas ku dhigo magaciisa iyo xanuunka hayo markaasna insha allah travel agencyga wuxuu ma aragtay ugu horeysa sameynayaa inuu airportka wargeliyo diyaaradii uu u booking gareeyo wheelchairkii marka laga dego sacuudi carabiyana insha allah halkaas waxaa facility wheelchairada way yaalaan airportka ma aragtay inay dadka wheelchair ilaa ay lagu geeyo baska kadibna markii hoteelka uu tagay insha allah hoteelada oo dhan waxaa badanaaba qofka hadduu tago xaj uuna rabo in uu wheelchair uu gato waxa uu ka heli karaa farmashiyaasha farmashiyaha ugu horeeyuu tegayaa wheelchair ayuu kasoo iibsanayaa 250 riyaal qeybba ah qeybta ugu qaalisan ilaa 700 riyaal waa 120 baan waaye kadibna xajka marka uu dhamaado waxaa jirto meel xaramka ah oo la geeyo oo qofka waqaf uu ka dhiganayo uu baxsanaya waqaf ka maarmo soo noqonaya dad kala ugu ma aragtay ugu dawaafayo ugu xajinayo insha Allah sadaqa jaariya noqonaysa biidnillah taala farxiya hagaag I think in su-aashaas looga jawaabay farxiyo waxaa noo muuqda hadda xajkii waa noo muuqda oo filan I think daawadayaashuna marna way arkayaan dadku gurigaas ilaahay bay joogaan shucuurtooda markaad koobtid amase ay halkaa joogaan amase maalinta xajka ugu dambeyso maalin carafada la yiraahdo oo kale ay joogaan buurta carafo ilaahay ay baryayaan sawir guud naga sii dareenka ay leedahay maalintaas qofka maalinta carafo waa maalinta qof walba oo islaama uu tamaniyayo in uu carafa uu istaago rasuulka sallallahu alayhi wasallamna uu ma aragtay xadiis saxiixa uu ku leeyahay alxaj carafa carafo sideedaba marka ugu horeysa dadka muslimiinta marka ay tagaan dowladda sacuudiga waxay u sameysay carafa
in aad ku jirto xuduudii carafa calaamada aad ku garanayso calaamadahaas oo boorar waxay ku qoran yihiin jaallo ah marka qofka waa inuu hubsadaa in calaamadahaas uusan ka dhex bixin maalinta carafo maalintaas waa maalinta kaliya oo arkayso ummadii oo dhan oo dhar wada cadcad qabto oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu tagtay waa maalinta sida diinta islaamka ma aragtay rasuulka sal slam noo sheegay allah subxaanahu watacaala malaa'igta uu ma aragtay uu ugu ma aragtay faanayo addoommadiisa carafo taagan waa maalinta rasuulka sal alay slam uu yihi afdal ducaa yowm carafa marka qof walbo islaama waxaan aniga kula talin lahaa waxyaabo badan oo dadku ay sameeyaan oo maalintaas aan munaasib u ahayn inay sameeyaan sida dadka in ay rabaan inay tagaan inay buuraha fuulaan maalintaas qofku waa inuu ku mashquulaa marka la gaaro duurka ilaa iyo maqribka laga gaarayo qofka waa inuu maalintaas cibaado ku mashquulaa dad baa waxay aadaan masjid namira oo rasuulka sal alla alay slam khudbadda uu ka jeediyey masjid namira qayb ka mida xuduudu carafa ayuu ka baxsan yahay marka qofkii hadduu meeshaas taga uusan aqoonin waxaa laga yaabaa xuduuddii inuu ka baxo marka qof walba waxaan kula talin lahaa maalintaas waa maalinta alla subxaana watacaala qof walba ducooyinka alla uu weydiisto ducada ugu fadliga badan ay maalintaas ku jirto qof walbana waa maalintaas inuu ku dadaala in allah subxaana watacaala uu weydiisto adduun iyo aakhiraba inuu allana subxana watacaala noloshaana nolol khayr badan uu ku noolaado aakhirana janno allah subxana watacaala uu siiyo ummadda maaragta muslimiinta ah iyo ummadda soomaaliyeedna uu gaar ugu duceeyo insha allah وهجاك آدم كوم هاد علنا عبدولي الدب باوصل نقدرنا خالد التلفون هذا فرصة سين هلا وقف كلا كحجة هلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو ولا المجاعة ولا لا مقولات على يرام الله هذلك كرامش والله هذا هو هذا يستسولو مقولات وادوها ولا أها تي في اسكا بختي ولا يا تي في اسكا بختي مركو ولا سال اسكو مقالنا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سولو وإيجا جابتيا ولا لما مقلشة حد واكم مقالنا ولا لو waxaan rabaa inaan weydiiyo qiimaha xajka hadda inta uu maraayo xagee joogtaa ana marka adigu aniga waxaan joogaa London waa gartay marka waxaan jeclahay inaad waqti qiimaha xajka intuu yahay umuguuleed mushkiladu waxay tahay TV-gaaga daaran marka waa ku maqlaaya waxaan rabaa kaloo inaan weydiiyo walaalow hadduu qofka uusan awoodin wango inuu bixiyo aha TV-ga nagala socota installment ma ku bixin karaa aad waa mahadsantahay umuguuleed labada su-aalba waa maqalnay waa mahadsantahay cabdiweli umuguuleed su-aasha ugu horeysa waxay tiri haddii aan saxsanahay xajka qiimaha sanadkan uu marayo waxay ku xiran tahay travel agency walba backageka uu diyaariyey iyo qaabka uu yahay backajyadu way kala qaalisan yihiin ma 2 star ba ma 3 star 4 star 5 star dadka xaramka agtiisa la dejinayo dad xoogaa usoo lugeynaya 15 daqiiqo dad lagaba yaabo hal saac inay u jirto marka qof walba kolley travel agency walba qiimo gaar ayuu u degsaday hoteeladaas laakiin annaga ka furqaan travel ahaan xajkii sanadkan 2016 wuuba buuxaa oo alxamdulilah wuuba dhamaaday xajkii way ka buuxaa xajkii 2016 wuu buuxaa alxamdulilah rabbilcaalamiin annagu waxaanu geynaa dadka hoteelka xaramka kasoo horjeedo saacadda ku taalo madiinana hoteelka kasoo horjeedo clock towerka ayaan geynaa marka hoteelkaas oo qofka ma aragtay hadduu xanuunsan yahay hadduu qof weyn yahay hadduu qof yar yahay intaba u fududaynayo si uu ilaahay subxaana watacaala cibaadadii uu u yimid uu si fudud uu u heli lahaa uu ugu tegi lahaa maalmaha la degayo minana waxaanu dejinaa tendooyinka VIP da oo maaragtay ay yaalaan maaragtay joodariyadii ay ku seexan lahaayeen barkimadii iyo cuntadii oo saddexda waqtiba laga cunayo iyo cabitaankii oo free ah iyo shuyuukhdii oo halkaasba fadhido oo wax kalaba aan qabanayn maalmahaas dadku inay ku mashquulaan cibaado iyo wacdi iyo qur-aan aqris iyo cuntadooda qadi iyo quraay cashana fadhiga loogu keenayo marka backagekaas annaga sanadka waxaa siinaynay ilaa 4200 wuuna dhamaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waa gartay su-aasheeda qaybta labaad waxay ahayd qofkan awoodin mar qura inuu wada bixiyo maxay xaaladiisu noqonaysa umuguuleed su-aashaas waxay ku fiican tahay hadday rabto inay xajka installment u bixiso way u bixin kartaa laakiinse waa inay bilowdaa muddo hore
dadka oo kale waxay bilaabaan xajkan hadda sanadkan oo kale 2016 sidaan ognahay maalinta carafa waxay kusoo aadi doontaa 11 insha Allah September ama 12 meelahaas xajka waxaa laga soo noqon doonaa dadka ugu dambeeya October 15 haddii November ba ay travel agency-ga soo wacdo ay tiraahdo sanadkan soo socda xajkii ma raba inaan aado lacagtiina waxaan rabaa inaan tartiib u bixiyo way u furantaa insha Allah ما شاء الله aad ku mahadcelina abu guulada waxa uu leeyahay lagu jawaabay waxa wax qiimo badan yani oo lagu farxo qofkii xataa aan haysanin lacagtii hal mar ah wuxuu rajaynayaa inuu ilaahay gurigiisa tago soo booqdo haba markaad wax yar bixisid maalinba talaabo wax u sii qaadaysaa guriga ilaahay u sii dhawaanaysaa xataa haddii tii ilaahay ku timaado adoo dariiqa ku jira waad ka sharaf badan tahay qofan ku fakaraynin abu guulada Allah ku kasbay insha Allah taala kaana aqbalo waliba waxa laga kala ku xiga assalaamu calaykum Hello. Assalamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Soo dhaw walaal magaca. Waxaan rabay ii gudbisay. Waa lagu gudbiyay walaal soo dhaw Cabduuli Cabdi. Waxaan rabay aniga wiilkii. Assalamu alaikum. Salaam wa rahmatullah. Soo dhaw. Aniga wiilkii baxayna imrada u soconaa. Agency marka waxaan ka goosanay tigid. Marka gabar aan qaraabano ma ka degan baanan u socdaa. Marka aniga tigidkii goostay oo aniga wiilkii wada socono caafimaadkina marnay. ma dhibaa jiro haddii aan saas makan ku tagno hadhowtin dee gabadha qaraabada aan ahaana rabto inay macnaha dad xagga nooga darto oo group ah fiizi ma haysataa buu ku yiri walaal yawla fiizihi ma haysataa baa lagu yiri fiizihi waa ii xareesan baasaboorki 7 Juun la siinaa airport markaa tagtay yaa soo qaadayo waa ii xareesan yahay Cabdulla aad soo weydiisay ku muuqasho wuu xareesan yahay okay insha Allah fiiza haduu ku soo baxo biin Allah ta'ala tigidkaadana ku go'an yahay tigid waa la soo already waa soo qaatay ha kulli waxay ku xiran tahay travel agency-ga ka goosatay wixii aad ku heshiiseen laakiin se markii aad tagtid insha Allah airport-ka Jidda yaa kugu imaanaya mid baad diyaarsatay gabar qaraabada ugu imaanayso ma ka degan oo ayada ku soo doonaysa gaari wadato soo doonaysa ma sha Allah waa alxamdulillah waa tii kartaa ma sha Allah ugu tiri group aanan kugu darayo oo macnaha group badan baa meesha kaga dara dadka caawiya anigabo marka dib ma leeyahay cimrada waa gudanaysa insha Allah imo markii kugu horeysay umra aad tagto markii ugu horeysay insha Allah kullay aad waxa ugu dadaashaa inta aad joogto hadeer inta aad London ka tagin ama UK in aad bal isku daydo in aad umradii aad shuruudaheedii iyo arkaanaheedii si fiican aad u baratid aadna shuyuukhda masaajidada ku xiranta aad weydiisid biin Allah ta'ala xagee marka aan ka sii baranayo baama macnaha meelaha maktabayaasha ma lagu iibiyaa buugta oo saas looga barto waa laga helaa makaatibta dhan way iibisaa kullay travel agency walba oo xaji umra sameeyana waraaqii wuu hayaa haddii kale teleefankayga TV-ga ka qora insha Allah ayagoo Soomaaliya ku soo diri doona biin Allah ta'ala aad waa santaa Cabduuli laba su'aalood inaan ku weydiiyaan rabaa laakiin intaan su'aashaas ku weydiino waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo ku daawanayo umra iyo xaj iyo holiday aadayo daqiiqad iyo bar waxa ku soo koobtaa wixii aad talaf siin lahayd dadweynaha laba su'aal ku weydiinay jeclaan ku soo gabagabeyn soo dhaw qof walba oo TV-ga iga daawanaya insha Allah oo raba inuu xaj iyo umra aado marka ugu horeyso sidii hadaayta hadalkayga aan ku bilaabay qofka waxa uu socotaa waa cibaado waa beedka Ilaahay waa muhiim in aad ogaatid waxyaabaha ugu muhiimsan aad rabtid inaad ogaatid horta waa inay kamid noqotaa in aad xajkii iyo umradii aad u socotay aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu ma aragtay quraanka uu sheegay rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam sunnah uu sheegay inaad baratid waana waajib ku saaran arintaasna waxa moodaa in badan oo dadka kamida inaysan ku dadaalin qofka marka ugu horeysa uu ku imaado waxyaabaha uu ku weydiinay waxa kamida hotelkee degaya xageebaan aadaya insha Allah hotelka waa muhiim in asagana weydiiso laakiin waxa ka sii muhiimsan aniga su'aasheeda ugu muhiimsan ay tahay aan dadka u sheegayo in ay bartaan xajka iyo umrada shuruudihii looga baahnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad badan ayaa waxay ku dhacaan qaladaad badan qaladaadkaas oo keeni karaba in umradii iyo xajkii u tagaan ay ka buraan marka labaad waxaan dadka u sheegayaa sida hadaayta sheegay qof walba xaj iyo umra aadayo waa in aad baasaboorka aad haysatid 6 bilood muddo 6 bilood maalinta aad dhoofaysid ma aha maalinta aad umrada aad booking gareysanaysid maalinta aad dhoofaysid waa in uu muddo 6 bilood ah
ma aragtay waa inuu ka dhiman yahay waa inaad soo diyaarsataa sawiradii cumrada sidoo kale waa inaad soo diyaarsataa tallaalkii lagugu talagalay tallaaladaas oo aad ka heli karto GB-gaada amaba waxaa tallaaladaas bixiya farmashiyo walba oo ku yaala magaalada waxaana dhahaysaa waxaan u socdaa xaj iyo cumro waxaan u baahanahay tallaalkii saxda ahaa in aan qaato intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan ka xasuusto insha allah. su-aasha koowaad jecel ku weydiiyo waxaa jira waalidiin fara badan oo jecel dhalinyaradooda ama ubadkooda inay aadaan cumro ama xaj ay tagaan maalan mararka qaarkood waxaan u suurtagalahay waalidkaas inuu asagiina baxo 2 caruur oo teenager uu wado macquul ma tahay mustaqbalka dhow inaad samaysaan ama waxaan ka hortaagan miyaa jira inaad organize garaysaan waalidiintu inay caruurtooda kaliya idinku aaminaan waxa ugu muhiimsan qof lagu aamino ah 10 15 20 dhalinyaro ah Soomaaliya la geeyo xajkii ama cumradii ma aha caruur dhaqan celis laakiin caruur rabo inay guriga Ilaahay soo arkaan isbedel arkaan maxaa loo sameyn lahayaa cabdilxaafidow su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah travel agency badan waxay isku dayeen in ay sameeyaan in ay kaxeeyaan dhalinyaro badan sida hadda su-aasha adiga aad u dhigtay dhalinyaradu haddii ay tahay dhalinyaro masaajidka ku xiran oo ma aragtay yaqaano micnaha xajka iyo cumrada meesha ay u socdaan inuu beytkii ilaahay yahay annagoo kale waxaanu diyaarinay Furqaan Travel waxay leedahay shaqaale badan oo ka shaqeeyo cumrada iyo xajka annagu mar walba aan tagayno ilaa 4-5 qof oo aan ugu talagalnay in ay dadkaas beytka ilaahay aadaya u khidmeeyo ayaan ugu talagalnay waxaa kaloo shuyuukhda i raacdo aniga waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Haybe oo Masjid Nuur Birmingham masaajidkaas dadka masuulka ka ah ku jiro oo imaam iyo khatiibna ka ah sheekhu wuxuu hayaa dhalinyaro badan ayuu masaajid sabtida iyo xad iyo maalmaha kaleba ku hayaa dhalinyarada waxaanu u sameynay in anagu aanu kaxayno waalidiintood aanu kaga filnaano inay xajkii cumradii aadaan waxaan kaloo u diyaarinay waraaqdaas oo ay noo saxiixayaan waalidkan inay Furqaan Travel ay u dhiibteen caruurtooda loona wado xaj iyo cumro markasta oo airportka laga baxayana haddii ay dowladana weydiiso badanaa marka la soo noqonayo way ku weydiinayaan caruurtani maxay isu tiin maxay idin ka dhaxeeya xagee ka imaadeen markaan tusno waraaqihii travelka ma aragtay loogu talagalay iyo in waalidiintii ay noo siiyeen permission in caruurtooda aanu geyno cumro arintu waa aad iyo aad ayay ma aragtay ay ugu qanceen airportka xataa security-gooda marka waxaan waalidiinta anigu aan kula talin lahaa waalidka in uusan ilmihiisa intuu travel agency geeyo uusan oran cumro igu kaxe waa inuu hubiyaa travel agency-ga uu geynayo travel agency arrintan ka bixi kara miya number 1 waa ilmahaadii oo edab leh oo ilmo wanaagsan ah oo diintii ku toosan haddii intaa xaramka u dirto ka waran xaramka ilmihaadii lagu baro wax aan fiicnayn anigu waxaan experience ahaan aan ogahay aan soo joogay ilmo ayagoo fiican halkan mar group raacay anigana xaramka aan ku arkay ayagoo weliba sigaar cabayo markaasaan ku yiri miyaadan ogeyn inaad joogto beytka ilaahay meeshii dhulka ugu ma aragtay wanaagsanayd wuxuu yiri sigaarba ma cabi jirin meeshaan aan ku bartay oo see u baratay wuxuu yiri dhalinyarada aan la socdaa cabto anna waa la cabay marka waalidkii inuu arrintaas aad uga taxadaro waa in travel agency-ga kaxaynayo waa in ay leeyihiin culamo arrintaas ka shaqayso ma ahan ninka travel agency-ga masuulka ah kaliya waa inay jiraan culamo u qaabaysan arrintaas oo caruurtan marka ay Maka iyo Madiina tagaan waa in la soo xasuusiyaa cabsida Ilaahay waa ayagoo isbedel ku dhacay oo tawxiidka Ilaahay loo soo sheegay oo adduunkan in laga tagayo la dhimanayo oo birrul waalideyn lagala soo hadlay oo ugu muhiimsan waa in ay imaadaan caruur badan alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay waa ku soo hanuuniyay waa inay isbedeleen waalidiin badan baaba hadda jiro oo annaga nagu xiran oo caruurtooda aan kaxayno hadeerna qayb badan ba waxay raacaysaa group ka baxayo 18 Juun oo aadayo xaramka gabagabadii gunaanadkii waxaad hore dhacay ay barnaamijka noo sheegtay sanadkan dadka xajka u wadaysan inay buuxaan agensiyo badan waxa arkaysaa meelaha qaarkood markaa maraysid dadka tigidho siinaya oo telefoonadooda siinaya oo xaj iyo cumraan wax u wadnaa idinku say ku dhacdaa iyadoo muddo ka dhiman tahay inaad buuxsantihiin marka ugu horeyso cabdixaafidow hada min fadli rabbi laa xawla walaa quwata ila billah ma ilaahay xaggiisa mahad ilaahay ka imaado way xaggiisa ilaahay ba u sugnaatay annagu xoog iyo xeelad aan leenahay kumaana buuxin laakiinse haddaan ku xasuusiyo soomaalidii hore oo xigmadda lahayd waxay dhihi jirtay magaalo waa madal inta joogtana waa markhaati marka dadkii na raacay sanadadii lasoo dhaafay
furqaan travel la yaqaano servisyada ay dadka xajka iyo cumrada raaca ay u samayso dadkaas ayaa dadkii noo soo diray anigu kolley waxaa iigu dambeysay waraaq xayeysiin aan qorto 2012 2012 wixii ka dameeyay ilaa hadeer dadka aan xajka iyo cumrada geeyo unbaa dadka ii keeno marka dadka waxaan kula talin lahaa dadka kaxeeyo in dadka qaybtood waxaa laga yaabaa inay sirtaa qarsan lahaayeen laakiin anugu qarsan maayo waxaan u qarsanaynin waxaan rabaa dadka la kaxaynayo waa diyuuf raxmaan haddaan dadka wax fiican u sheega dadka kaxaynayo ay ku dhaqaaqaan sirtaas in ay ilaahay subxaana watacaala maarata hortiisa ajir aan kaga helayo qof walbo xaj iyo cumro kaxayna wuxuu rabaa inuu hore u buuxsamo marka haddaa rabti inaad hore u buuxsatid waa in dadka ilaahay subxana watacaala dartiisa u wanaajisaa dadku ayagaa isu kaa sheegaya insha allah marka waxaad leedahay adigu waxaad leedahay war hoy dalabka quruxsada arsaaq waa laydin qoray waa sida rasuulka sal alla alay wasalam uu yiri qofka inuu si fiican u doono waxa irsaaqada dadkan waxa dadkan akaxaynaysan cabdilxaafid oo dad caadi maaha ilaahay subxaana watacaala wuxuu dadkan uu ku tilmaamay martida ilaahay qofka marka haddii martida ilaahay aad si qaldan ula dhaqantid adiga maalinta la qaaqaawan yahay oo ilaahay hortiisa la taagan yahay maxaad ka rajaynaysaa way cabdulle aad iyo aad kugu mahad celinaya waxaan jeclahay inaan inta kusoo gabagabeyno waqtigoonu eryanaya awgeed daawadayaal oo ka xuma inaan kulligii fursadayna siin kari weynay laakiin insha allahu tacaala barnaamijyo ka fara badan baanu ku kulmi doonaa dadka doonaya cabdulle macluumaadkiisa inay helaan kolley insha allah t v-ga ka arki doonaan haddii ilaha yihahdo farsamada barnaamijkan caawa waxaa si hagarlaan uga shaqeynaya cabdirashiid rashka iyo weliba cabdixakiin faqi abuukar mahadi waxaa kaloona caawiyey maxamed xaaji cagma dhige anigoo cabdixafiid iyo cabdulle ayaa halkaan idiin fadhinay intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono taqwada ilahi weli wasalaamu calaykum waraxmatullah bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idiin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadyada iyo tikadhada ee furqaan travel ee ku taalla bartamaha birmingham oo idinkugu khidmaynaysa si la yaab loo hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooya haddaad booqanaysa iyo dhulka barakaysan maka almukarama madiinatulmunawara dadka doonaya inay xajka iyo cumrada tagaan waxay ugu talagaleen diyaarado toosoo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhammaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugyada ama teendhooyinka casriga ee VIP-da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiinna iyo howlihiinaba u dirsataan furqaan travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena ay jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyadaa jeclaystay isagaa jeclaystay kulligoodaa jeclaystay adinkuna jeclaada furqaan travel yaan la moogaan hawsha idiin qabatana waa la hubiyey waxaana ay xubin ka tahay hay-adda caalamiga ah ee atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga sii socod iyo soo socodba hadal badan ee hanma buuxiye la xiriira maamulaha sare cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaan idinku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ah shaashadda ka dhaawada